ka dhegayso Star FM deegaankaada degmada aad ku nooshahay ama guud ahaan dalka iyo dibadda. muqdisho 97.0 megahertz, beledweyne 89.0 megahertz, Dobley 89.5 megahertz, balad xaawo iyo Mandera 92.3 megahertz, faydhabo 89.8 megahertz, jowhar 89.9 megahertz, gurceel iyo dhuusamareeb 89.5 megahertz, luuq 99.9 megahertz, kismaayo 89.5 megahertz, gaalkacyo 87.7 megahertz, cadaado 87.7 megahertz, garbaharri 89.0 megahertz. Star FM saaxiibka bulshada waxay saacad kasta iyo sakan walba ay dadaal ku bixinaysaa sidii ay ku siin lahayd wararka ugu saameynta badan ee ka dhaca deegaankaaga inagoo kaashanayna wakiiladeena ku sugan deegaan walba iyo ila wareedyadeena sida joogtada ah inooga caawiya helidda warar saxan oo sugan haddaba adiguna nala wadaag dhacdooyinka aad goobjoogga u tahay ee ka dhacay deegaankaaga si aan ugu soo bandhigno dhagaystayaasheena inaga soo wac ama fariin inoogu soo dir nambarka 617 46 ama 85 33 Star FM wehelka bulshada. si aad u hesho macluumaad ku saabsan deegaankaaga gobolkaaga iyo guud ahaan geyiga geyso mawjadda Star FM oo la soco warar hufan barnaamijyo tayaysan iyo xogo ku xiisa geliya Star FM idaacadaada. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dadka na dhagaysanayo ku soo dhawaada qodobada wararkan caawa idin diyaarinay waxaana ka mid ah taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo faahfaahin ka bixiyay meydka gabar 12 jir ah oo laga xidhay waqooyiga magaaladaasi dowladda Soomaaliya oo dalka ka mamnuucday dadka ka imaanaya 4 dal oo qayb ka ah wadamada uu ka dilaacay cudurka coronavirus maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun ku riday askari qof shacab u dilay ruux kalena u dhaawacay in uu beer ku fasho awgeed ay ka diideen madaxweynaha maamulka Puntland oo dowladda dhexe ku eedeeyay burburin iyo faragelin ay ku hayso maamul goboleedyada dalka iyo dibadda oo aad ku maqli doontaan kiiskii ugu horeeyay caabuqa coronavirus oo laga helay dalka Congo. marka habeen wanaagsan waa habeen isniinaad axad ay sii bixiso taariikhdu ay ku beegan tahay 15 Maarch sanada 2020 qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada maxamed abuukar cabdi xasan ayaa farsamada ku jira cabduqaadir maxamed cabdullaahi qoslaaye ayaa halkan idin kala socodsiinaya aan ku bilownay sida hordhaca warkaba aad ku dhageysateen taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ay faahfaahin ka bixiyeen meydka gabar 12 jir ah oo aroortii saake laga helay waqooyiga magaaladaasi علي محمد علي ayaa faafaynta warkan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka galguduud ayaa ku soo waramaya deegaan dhanka waqooyi uga beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug in halkaasi laga helay meydka gabar 12 jir ah oo si xun loo dilay ciidamo ka tirsan booliiska galmudug oo tagay deegaanka falka dilka uu ka dhacay laguna magacaabo bohol ay ka soo qaadeen meydka gabadha la dilay waxaana la geeyay isbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb dhanka kale ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay nin iyo hooyada dhashay gabadha la dilay kuwaasi oo eedeeyay inay ka dambeeyeen falka dilka ee loo geystay gabadha labada eedaysane ayaa loo kaxeeyay magaalada dhuusamareeb waxaana la sheegay in hooyada iyo ninka oo ah saygeeda lagu tuhumayo inay ka dambeeyeen falka lagu dilay gabadha yar oo da'deedu ahayd 12 sano dadka degan deegaanka bohol ee gobolka galguduud ayaa si aad uga naxay falka lagu dilay gabadha da'da yar oo kamid ahayd dadka deegaanka waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii
marag muujin waxa la yidhahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go-go-ay oo xilligii la dilayay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabaro la gaarsiiyey madaxa gabadha waxaa go-ay cadad ka mida jirkeeda timaha cadad ka mida jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayey inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda sakiiradda ah oo la yidhaahdo ikraan mire kiiskan aan soo qabanay ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geysta oo weliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku faka doonin ehelnimo oo la gey doono sharciga wixii ay ka helaan ay yeelan doonaan haddii alla idmo codka taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb waxaa uu dambeeyey warkii wariyaheena cali maxamed cali markaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday guud ahaan dadka ka imaanaya 4 dal oo qeyb ka ah wadamada uu ka dilaacay caabuqa coronavirus sucaade cusmaan maxamed ayaa faahfaahinaysa warkaan war ka soo baxay hay'adda duulista ee Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay in dalka ay soo galaan muwaadiniinta iyo ajaanibta ka imaanaya 4 dal oo si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. Dalalka la mamnuucay ayaa waxay kala yihiin Shiinaha, Iiraan, Koonfurta Kooriya iyo Talyaaniga. Waxaana dawladdu ay sheegtay in Soomaaliya imaan karin dadka ka imaanaya dalalkaasi xitaa haddii ay Soomaali yihiin. Shaqaalaha garoonka iyo duuliyaasha diyaaradaha ayaa waxaa lagu amray inay la soo xiriiraan hay'adda hawada Soomaaliya haddii ay rakaabka ugu shakiyaan inay qabaan cudurka coronavirus. Warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalalkaas uu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. Sidoo kale dawladaha Kenya iyo Itoobiya oo daris la Soomaaliya dad qaba cudurka coronavirus laga helay. Wasaaradda Caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho waxa ay ka wadaa in dadka garoonka ka soo degaya la marsiiyo baaritaano caafimaad halka la diyaariyay goobo lagu karantiilo dadka looga shakiyo. sida uu markale qodobkan ku faahfaahinayo wariyaheena cali maxamed cali ee ku aadan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukun ku riday askari qof shacab ah u dilay ruux kalena u dhaawacay in uu beer ku fasho ay ka diideen. maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dabla xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilowle ayaa loo haystaa dilka Allah u naxariistay marxuum Xuseen Axmed Cabdulle iyo dhaawaca Yaasiin Geedo Xuseen kadib markii ay ka biyadiideen inuu ku fasho beer uu ku lahaa eedaysanaha deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana falka dilka uu dhacay 31 bishii Oktoobar sanadkii hore 2019 taliska ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 6 ayaa gacanta ku soo dhigay askariga dilka geystay. xafiiska xeer ilaalinta ayaa isla xilligaasi weydiistay garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe dabla xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilowle ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ciidamada qalabka sida Dhama Ismaaciil Salaad Maxamed ayaa ka sheegay fadhiga maxkamadda in eedaysane dabla xoogga Cabdiraxmaan Cabdulle Hilowle uu la dhaqmay dhibanayaasha sidii inay adoomo u yihiin damaciisana uu ahaa inuu dilo marxuum Xuseen Axmed Cabdulle halka Yaasiin Geedo Xuseen uu doonayay inuu ugu shaqeeyo si khasab ah sida daraadeedna uu mudan yahay in la dhadhansiiyo xanuunka geerida. garsoorayaasha ayaa ugu dambeyn go'aamiyay in dable Cabdiraxmaan Cabdulle Hilowle lagu xukumo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Xuseen Axmed Cabdulle sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. xukunsanaha ayaa haysta muddo 30 cisho ah oo uu ku qaadan karo racfaan haddii uusan ku qancin xukunka ay maxkamaddu ku riday. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay burburin iyo faragelin toos ah oo ay ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira. hadalkan waxa uu Siciidani ka sheegay shirka wadatashiga Puntland ee maanta ka furmay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal. Sucaade Cusmaan Maxamed ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haysa. magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxaa ka furmay shirka wadatashiga maamulka Puntland kaasoo ay ka qayb galeen in ka badan 469 ergo oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa. shirkan oo socon doona ilaa muddo 3 cisho ah
ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiinta maamulka puntland madaxweynayaashii hore ee puntland wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee ku matalaya dowladda federaalk soomaaliya odayaal dhaqameed waxgarad siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland inta uu shirka socday ayaa waxaa ka hadlaya madaxweynaha maamul goboleedka puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo uu khudbad ka jeediyay shirka wadatashiga ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay kamid ahaayeen khilaafka sii xumaanaya ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo wili xal laga gaarin madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu tilmaamay in Puntland ay diiradda saartay in xal laga gaaro khilaafkaasi iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha Puntland hase yeeshee qorshahaas uu fashilmay ayna mas'uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay waxaan xoogga saarnay in aan ku qancino madaxda dowladda federaalka in xal laga gaaro khilaafaadka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka sidaas si leeg waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dowladda federaalka sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland laan uga imaanay dhinaca dowladda federaalka dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxa kamid ah madaxda dowladda federaalka oo si bareer ah u hareer maray mabaadi'dii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horeyso federaaleynta dalka iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda dalka khilaafka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi waxa uu eedan ku loo jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya aan halka uga gudubno wararka siyaasadda Kismaayo hadii aynu eegno wararka ka imaanaya aaba Soomaaliyeed oo naafa ah kuna nool magaalada Kismaayo ayaa xilligan la daaladhacaya maareynta nolosha 6 caruur iyo hooyado oo xaamilo ah kuna darso aabe Maxamed Xasan Cilmi waa 60 jir dan iyo duruuf adag ayuu xilligan wajahaya maandeeq Xuseen Ibraahim ayaa ku booqatay hooyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo sheekadan kooban ay ka diyaarisay maxamed xasan cilmi waa aabba Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah ku nool magaalada Kismaayo waa aabbahan lixaadkiisu aan dhamaystirnayn la nool qoys ka kooban 6 caruur iyo hooyadooda waxaa haysata aabbahani Soomaaliyeed duruufo adag oo dhanka nolosha warbaahinta istaa u kurgashay xaaladda aabbahan ayaa ku booqatay hooyga uu kaga nool yahay magaalada Kismaayo ka ugu warbixiyay duruufaha adag ee haysata isla markaana ka codsaday walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogan inay caawiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu maxaa la yiraahdaa maxamed xasan cilmi degan Kismaayo xaafadan ku nool nin oo cuuriyaan asaa arkaysaan oo jiis aan ahay waxaan noqday jiisnimadan 2012 bisha 12aad waxaan ahaa nin oo markii hore shaqaalihii mashruuca sokorta mareeriyaan ahaa meeshaas dib igu soo gaaraan ku cuuriyaamay haddana halkaanaan deganahay ciyaalkaasu ilaahay i siiyey oo habartii dhashana qof xanuunsan oo xaamilo ay tahay arkaysaan oo meeshaas fadhida iida u ruruuri jirtay ayadana way xanuunsan tahay wax ayaa hayso ilaahay abuur male dabka ilmaha dadkaas deriska ayaa habeen kasta maaragtay marba habeen qof dabku igu subaa anin nin fara wax ku haayo mihi shilin iyo xoole iyo waxaan hayo oon hadda maanta ilmahaasaan kula ruuraya male ilmahaasa arkaysaan intaa hadda waxaa ii taagan 4 ii joogto 2 magaaladay ku maqan yihiin waxbarasho uma hayo ilmahaas maanta ku jira iskoolka ma bixin kara lacag gurigaan ku horeeyo kiro oon deganaa waxaa lagu yeeshay $150 ah ninkii markuu yeeshay wuxuu yidhi niyo lacagta mar alle markaas heli karto ii keen sidaa la adligeeda meeshaan ku deganay dad walaal oo qaraabo ah ayaa meeshaan dejiyey markii arrintii ay noocaas noqotay nin islaam ah ayaa waxaa siiyey meel nusboos ah oo ku yeela suuqa xoolaha ku yeela siiyey shilin aan maaragtay maanta aan ku dhisaayana ma hayo sidaa la adligeed ayaa maanta ayaa dad dhallinyaradaas aan ugu yeertay hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan ka codsanayaa
dadka islaamka oo joogo ama dibad ha joogo ama dal ha joogo oo islaamba ku abtirsanaya ilmahaas ilaah baa siiyey ilaahay ka sug anaa ka mas-uula ana ninkaygaas arkaysaa aan ahay ma shaqeeyo ma shaqayn karo qof maanta aan leeyahay aanu ay ku ordayaan oo ani iyo ilaahay aan ahayn oy u roorayaan oo maaragtay ay maanta ay wax ka raadinayaan ma laha waa aniga iyo allihii iyo abuurtay iyo inta islaamka oo markaad iga danqanayso oo ama aragtidayda ama dirisila ah oo iga danqanayso ayaa maaragtay aan ku dul noolahay maandeeq xuseen ibraahim warbaahinta haysta magaalada kismaayo mahadsanid maandeeq xuseen ibraahim markaan wararka soomaalida ka baxsan haddii aynu eegno kiiskii ugu horreeyey caabuqa coronavirus ayaa waxaa laga helay gudaha dalkaasi congo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka caabuqa halista badan ee coronavirus cudurkan waxaa laga helay nin da-diisa lagu sheegay 50 sano jir oo ka yimid magaalada baariis waxaana la sheegay in la karantiilay isaga iyo xaaskiisa iyo gabadhii uu dhalay cudurkan ayaa markiisii ugu horreysay ka bilaabmay dalka shiinaha iyadoo uu kusii faafay meelo badan oo adduunka ah isagoo waxyeeladiisana ay aada u tiro badatay 5844 qof ayaa u dhintay cudurka coronavirus adduunka oo dhan iyadoo dhinaca kalena 157,300 oo qof xilligan uu hayo cudurka wadamo badan oo adduunka ka mid ah ayaa waxa ay wadamadooda ku soo rogeen xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah islamarkaana looga hortagayo caabuqa coronavirus gudahaan warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyo star studio muqdisho waa naga intaa ciiduu seege waxay dib uga heli karaan bogga mareegtaan ku leenahay starfmsomalia.com maqal qoraal sawir aan ka marnayn maxamed abuukar ayaa farsamada ku jira cabduqaadir qoslaaye ayaa idila socodsiinaya ka horsee nabad iyo baraara habeen wanaagsan